اوكي aniga shaqadeeda waa jeclahay walaalka markuu iimaanayay saan uu ekaa dabcan waa arki kartaa calooshiisa inta ay leegtahay markuu si jeestana saan uu ekaa dabcan waa arki kartaa dhabarkii agagaarkiisa baruurta ka saaran walaalka markuu iimaanayay miisaankiisa wuxuu ahaa 112 kiilo aniga walaalkan waxa wala shaqeynay hadda 5 bilood oo wada shaqeyn fiican dhaxmartay hadda walaalkan saan uu egyahay dabcan hadda markaa fiirisid sidoo egyahay iyo sidoo ekaan jiray farqi weyn u dhaxeeyo calooshiisa markaa fiirisid hadda iyo calooshiisa say ahaan jirtana farqi u dhaxeeyo markuu sii jeesto saan uu egyahay dabcan hadda dhabarkiisa soo egyahay iyo sidoo ekaan jirayna farqi weyn u dhaxeeyo walaalkan hadda miisaankiisa waa 78 kiilo video inta ugu dagalin adiga video fiirsanayo hada protein u baahan tahay soo dalbo anaga waxaan haynaa proteinada suuqa ugu fiican hada pre-workout u baahan tahay soo dalbo hada creatine u baahan tahay soo dalbo anaga waxaan gadnaa shirkadaha suuqa ugu fiican alaabta ay soo saaraan hada Europe joogtid alaab markaa soo dalbatid si sahlan ayaa gurigaaga lagu keenaa dib ma lahan lacag daadan haysan kalarna ku qaadan kartaa wadanka aad joogtid haday kalarna ka shaqeynayso lacagtan waxa iska bixin kartaa 3 bari kadib iyadoo hal shilin oo riba ah aysan ku korin soo dhawaada dukaankiina way waxaan xasuustaa walaalkan koow markaan is arkeenay horta inaan waji ka waji isku aragna muuse rabin sababtoo wuu xishoonay walaalka markaa is aragnay dharka aad ugu yaraayeen xataa ookiyaalaha uu wato wuu ku yaraa walaalkan wada shaqeynta markaa bilaabeynay waxa uu horeeyay aan kula taliyay wuxuu ahaa dhakhtar inuu u tago oo dhiigag iska soo qaado dabcan waan ogaa motivation inuu u baahan yahay dhiigagu iska soo qaaday markii loo soo diray hurdadu ka kacay waxa dhacday habeena badan inuu seexan waayo dabcan dhiigagii loo soo diray ma uusan ku qancin waana waxa keenay isbedelka intaan leeg inuu suubiyo waa waxa keenay shaqadii aan u diray 200% inuu uga soo baxo walaalkan wada shaqeynta markaa bilaabeynay waxa kale oo ka saxay raashinka waan saxay caloric deficit ayaan galiyay walaalkan ma sahlanayn caloric deficit inaan galiyo sababtoo wuxuu u bartay mar walba inuu cuno intuu rabo waqtigu rabana inuu cuno walaalkan intaas waxa u sii dheereed habeenkii marka uu seexanayo wuxuu cuni jiray shukulaato walaalkan habeenkii haduusan cunin 500 gram oo shukulaato ah hurdo ma ka iimaaneen dabcan waa qiyaasi kartaa 500 gram oo shukulaato ah qofka habeen walba markuu cuno waxa ka dhacayo 500 shukulaato ah waa calorie badan ogow qofka markuu cuno 7000 oo kilocalorie uusan u baahnayn waxa ku darsoomayso 1 kiilo oo baruur ah marka walaalka waxa uu suubiyay barnaamijka raashinka uu suubiyay mid caadi ah muusan ahayn sababtoo walaalkan waa qof u bartay wax badan inuu cuno waxaan u suubiyay barnaamijkaas raashinka waxa ku jiray raashin calorie ku jiro uu yar yahay isla markaasna caloosha u buuxinayo walaalkan maalintii wuxuu cunayay 4 meal ama 4 mar ayuu maalintii cunayay raashinku cunayana wuxuu ahaa raashin calorie ku jiro uu yar yahay isla markaasna raashin badan ah markastoo wax cuno calooshiisa aad u buuxsamaysay waxaan taas u suubinaynay wax kale ma ahan waxaan rabay markastoo wax cuno calooshiisa saaid inay u buuxsanto suusan u dareemin wax kale inuu u baahan yahay waxa kaleete oo walaalkan u suubiyay barnaamij jimicsi oo asiga goolkiisa ku salaysan markaan bilaabeynay waxaan ku bilawnay 1 saac oo socod ah halka saac oo socodka ah walaalkan way ku dhibneed mararka qaarkood wuxuu suubinayay 20 daqiiqo markuu suubiyo cabaaru nasanay haddana 20 daqiiqo kale ku celinay cabaaru nasanay haddana 20 daqiiqo kale ku celinay saasoo ku dhameynay 60 daqiiqo oo socodka ah walaalkan hore muusan u ahaan jirin qof sporti ah wax sports ah uu hore u suubiyay ma jiraan walaalkan 80 kiilo inuu ahaado waxa ugu dambeysay markii uu ahaa 14 jirka 14 sano wixii ka dambeeyay walaalkan miisaankiisa aad ayuu u badnaa marka walaalkan socodkii markuu la qabsaday wadnihiisa garaaciisa markuu fiicnaaday sanbabihiisa markay xoogeysteen markaas kadib waxaan tartiib u bilawnay inuu suubiyo resistance training birqaadista tartiib aan u bilawnay waxaan xasuustaa week ugu horeeyay oo birqaadista walaalkan uu bilaabay sariirta uu ka soo kici waayay meel kaste way xanuunaysay dabcan qofka markuu gymka ku cusub yahay week ugu horeeyay week labaadba training uu suubiyo waxay u keenayaan murqa xanuun waana wax caadi ah marka walaalkan
ما إيش بروسيس كيسا ما أوصن إهين ميت سهلا لكن ولكن موتيفيشن كيسا وحوها ميت أن عادي إهين ويكجونيد إسبدل إنه صوبيو intaas waxaa usii dheer walaalkan wuxuu ka shaqeynayay laba shaqo asoo laba shaqo ka shaqeynaayo maalintii 2 saac oo jiimka ku bixinayay weegina 5 jeer ayuu jiimka aadayay way ka go'need walaalkan isbedel inuu suubiyo waa ogahay qaar badan oo idin kamid ah walaalkan isbedelku suubiyay marka aragtiin waxaa leedihiin walaalkan saaid u caato u noqday laakiin waxaadan ogeyn qofka hadduu yahay qof buuran markuu miisaanka iska rido macnaheeda ma ahan murqo waaweyn inay u soo baxayaan marka miisaanka iska ridid murqaha muuqanayo waa wixii baruurta hoosteeda ku qarsoonaa hadaa ahayd qof baruurta hoostiisa ugu qarsoon yihiin murqo waaweyn marka baruurta iska ridid murqo waaweyn soo baxayo hadii baruurta hoosteeda ay waxba ku qarsooneena markaas macnaheedu waxay tahay murqo yaryar ku soo baxayo fiiri 5 bilood awalkan wala shaqeynay 5 bilood miisaan intaas leeg ama baruur intaas leeg in la dhimo murqana ma lagu suubin karo dabcan walaalka markuu 110 kiilo ahaa iyo hadda xoog badan yahay taas macnaheeduna waxay tahay hadda ayuu murqo badan yahay ha walaalkan qof weyn oo ahaa laakiin taas macnaheedu ma ahan murqo weyn inuu lahaa baruur badan ayuu lahaa baruurtiisa aad u badneed marka hadda markuu miisaanka ka dhacay dabcan macnaheedu ma ahan murqo weyn inay u soo baxayaan sababtoo ah 5 bilood bes aan wala shaqeynay hatta 5 bilood aan wala shaqeynay si toos ah maysan ahayn 3 bilood marka wala shaqeynay bareega naga soo dhaxgalay haddana walaalkan arrimihiisa markuu soo dhameystay markaas kadib haddana dib ayaan u bilawnay dabcan walaalkan aniga asiga waqti dheer aan wala shaqeyn doonaa insha Allah isbedelku suubiyana mar walba update aan ka soo suubinaa waxa kale oo qosolka leh waxa uu yahay walaalkan isbedelka uu suubiyay sawiradiisa marka social media ku soo bandhigay dad badan macquul ila noqon weysay dad badan waxay dhaheen waxaan waa fake waa laba qof oo kala duwan runtii arintaas aad ay noo farxad galisay fiiri shaqada qabatay inta ay leegtahay waxa ku ogaanaysaa dadka macquul inay la noqon weyso dadka shaqada qabatay markay macquul la noqon weyso taas macnaheedu waxay tahay waxa qabatay shaqo fiican marka dadkaas saas dhahay farxad ayayna geliyeen aniga walaalkan midada kale hadaa tahay qof caajis ficiiska reebay normal waaye marka aragtid qofaca ah oo isbedel suubiyay waa kama seeraysaa dhibka jir wuxuu yahay walaalkan dadaal uu muujiyay adigana caajis faca ka reebay waa suubin kartaa walaalkanba wuu suubiyay dad kale adig kula mid ah oo suubiyayna way jiraan marka fadhiga ka kac hadii kale caajis ayaa faca ka reebayo marka adiga videoga fiirsanayo hadaa rabtid coach diyaaran ku ahay coach waan ku noqonaa ani markaan ku leeyahay coach aan ku noqonaa macnaheedu ma ahan barnaamij inaan ku suubiyo oo ku soo diro oo meeshaas isku keen dambeynayso processka dhan waa kula soconaa wax walba ana soo diyaarinayo adiga waxa laga rabaa suubis bes marka aad shaqo diyaar u tahay rabtid isbedel muuqda inaad suubisid ila soo xiriir waxa igala soo xiriirtaa emailkan aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videoga ana daawateen waxaan noo balana videoga ku xigo balanteen waa isbedel iyo caafimaad